wayba banjaray tareenkii hay Soomaali heliisa dunidana helis leh wayba isku tuuray tareenkii sida dawlad goboleed oo muhiim ah hay midnimada qarannimada wadajirka dawladnimada Soomaaliya Puntland Jubbaland kol hore isku tuureen tareenka wayban haatanka dambe koonfur galbeed oo yeena tareenka ku degdi wayban meelo ku bahay federalismkii iyo tasduurkii heliiska laga hay wayba dhiyaasa in dawlad goboleed kasta doorasho sangaare oo qabsada sidii hore in ku dheeday Jubbaland koonfur galbeed kol hore xiriirka injarta dawladda Soomaaliya ilaa la ku helo sidii sheegan dawladda Soomaaliyeed oo heliis likay dawladda Soomaaliya ee dagaal hoosaad siyaasadeed kuwada koonfur galbeed kuleed markii Baydhabo la ku ay taageerada tasduurka dalka oo xildhibaanada baarlamaanka kol hore oo ansaxiyeen koonfur galbeed way botofoolada hayta in doorasho gaar qabsata ya lambadiyahay inkastoo ay jarta xayiraad diyaarado hambahay Baydhabo oo dawladda Soomaaliya saartay wayba la qorsheeyahay in Baydhabo Saadir Sheekh Aadan Madoobe gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo erga ahaan dawladda Soomaaliya ku darara qaab reedan heliisyo safar sheeynimo ogsoodka kooyo Baydhabo haabahato Sheekh Aadan Madoobe warar hoose sheegay in uu sii murashax madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya oo qarsoon balse awood kala deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan gobolka Bakola dhageyste adina ma kiilata aragtada hoosnin karab